muddo 3 bilood uu xiran yahay inankaasi haddaad aragtaan moralkiisa iyo niyadiisa qof kastoo la kulmaa waxay noqonaysaa waa hawl adag weeyaan bil barakaysan baynu ku jirnaa waxaanu rabnaa akoonnada aanu ka furnay dahabshiil iyo Telesom in lagu soo hagaajiyo sidii ciyaartoygaasi wixii aynu tari kareyno aynu tarno shirkadaha waaweyn gaar ahaan kuwa wax daabaca ee ciyaartoyda iyo kooxuhu ku xidhan yihiin waxaanu rabnaa marka laga tago ciyaartoyda dibadda iyo gudahaba inay ka soo qayb qaataan inankaasi sida aynu bisha Ramadaan gudaheega aan u soo furan lahayn tusaale ahaan ciyaartoyda dibad iyo gudaba jooga marka Hargeysa oo kaliya la sheego tiradooda haddaynu soo koobno kuwii hore u ciyaarayay iyo kuwii dhexe iyo kuwa imika jooga halka u hooseysa haddaynu istaagno oo calaa qof akoonka $10 oo halka ugu hooseysa akoonka haddii $10 lagu soo shubo waxay noqonaysaa 3,000 oo qof haddii calaa qof $10 lagu shubo $30,000 bay noqonaysaa waa ciyaartoyda kaliya iyo mas'uuliyiintooda haddii calaa qof guda iyo dibadba $10 akoonka lagu shubo 30,000 bay noqonaysaa haddii laga badiyana waxay noqon doontaa in inankaas ciyaartoygii xaas iyo caruur bulay intaynu magtaa bixino inaynu waliba caruurtii iyo xaafadii aan wax tarno waxay noqon doontaa taariikhda markii ugu horeysay ee bahda sportsku ay iska qabtaan ay wax weyn oo la taaban karayo ay iskeystaan aad baad maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cid u danqan lahayd waa intan iyo inta kale maqan waxa la doonayaa maadaama arrinkani arrin culus yahay shil yahay ninka dhintayna Allah u naxariisto masaa'ibtu way iska timaadaa waxa weeye nin walba waxa weeye bilaadan baynaho waxa weeye qadarku iska yimaadaa qadarkeena la cidma baajin karto hase ahaatee inta nool ayaa u baahan in waxa weeye la iska rabtaago oo waxa weeye la taageero arrinka ninka walaalka ee mushkiladda haysata waa mushkilad culus $35,000 lacag yar maaha awalba muddo 3 bilood markuu xiray alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin mujtamaca islaamka ah ee walaalaha ee bahda sportska ku bahoobay ee gudaha dibad jooga sida la sheegay halka ugu hooseeya hadii laga soo qabto min $10 akoonka lagu tuuro waxa weeye arintii iyo wixii looga baahnaa iyo inta la doonayay in ka badan waa laga heli karaya marka walaalkayna saas ku soo bixi karaya marka waxaan u leeyahay anoo ugu horeynaya insha Allah biidnil kariim in aan ka wada qayb qaadano gudaha dibadba dhaqaalaha taageerada ninka aan ugu fidinay macaawinada ah ee jeelka aan doonayno inuu ka soo baxo wixii gashiya lagu lahaana in laga bixiyo in aad nala qaadataan walaalayaal waxaan waana bil khayraadsan waa bil Ramadaan waa bil waxa weeye sadaqa iyo dhinaca ajriga xasanaadka xitaa galaysa marka hadalka laguma tuma hadalka badin maaye waxaan leeyahay akoonnadina waa furan insha Allah biidnil kariim arrinkaas maanta waxa weeye aan halka isku nimid in aad nala qayb qaadataan annaguna kooban ka nahay insha Allah biidnil kariim wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga muxidiin ahaan waxaan rajeynayaa kooxdaydii aniguba inaan si fiican uga qayb qaadan doono insha Allah waxaan ilaahay uga baryaa isagana inuu si khayr leh inuu soo dahay bisha Ramadaan waxaan leeyahay insha Allah aan caawino marka hore ilaahay baa mahad leh goobtan isku keenay oo aynu tabarucaad ama qaaraan doonayna inaan ugu ururino gudaha dibadda qaybta sportsku way ballaaran yihiin caasimadda oo kaliya maaha gobolada iyo qurbaha iyo meel walba way joogaan caawinta inaan soo caawinayna maanta intan aanu doonayno inaanu kaga bixino in ka badan ayaynu samayn karnaa haddaynu inagu isku tashanno go'aan kaliya oo mida wada qaadano oo inanka si degdeg ah oo 3 bilood ugu xiran stationka aanu uga soo dayno anagu waxaan ka mid ahay ciyaartoyga imikana waan ku jiraa horena waan ugu jiray tabarucaadkaana waan ka qayb qaadanayaa insha Allah taala dhammaanteen waxaan u baahanahay inaynu isgarab taagno aynu wax walba aynu ku dhaqaaqno sida aynu u caawin lahayn waxaan doonayaa inaan dhiirigelin intii la oran karay waa la yiri runtii waxaan inaan si serious arrinta uga howlgalno waliba waxaan aaminsanahay sportsku aad buu ballaaray qurba jooga iyo qaran jooguba runtii aad buu ballaaray qurba joog waliba arrimahan sidan oo kale khayriga aad looga qayb qaataan marka horta kooxihiinu lead wanaagsan
inaynu sameyno shakhsi kastaana wixii awoodiisa uu karayo inuu waxa weeyaan inuu isna contribute gareeyo qofka waxba contribute gareyn karayna inuu waxa weeyaan dadaalka wacyigelintiisa iyo abaabulkiisa inuu qayb runtii ka qaato mar labaad iyo mar saddexaad baan idin mahad celinayaa waxaan insha Allah idin rajaynayaa ilaahay hawsha in la garab qabto ilaahay inoo fududeeyo waxa weeyaan aniguna roolkayga kaalinteeda waan qaadan doonaa insha Allah wixii hawshayga soo aadan runtii diyaar baan laahay ilaahayna arrinta fadxi yaraha u fududeeyo qoyskii dhibaatadaasi gaadhay waxa weeyaan shilka gaadhay ku dhacay ilaahay naxariistay janno ha ka waraabiyo qabriga rawdatan min riyadil janna ha uga dhigo badal khayr qaban ha siiyo ilaahayna waxa weeyaan isagana ha u fududeeyo kullay waynu soo ducaynaa isagana waa bil Ramadaan khayrka waynu israacsanna insha Allah aad baan ugu rajoonayaa inuu israacsan doono anigoo Ismaaciiluna kunkii ugu horeeyay mustaciid baan lahay gudidana waan ku wareejiyay oo aan koodka galabta aan ku soo shubnay kanaadi ahaana waa naga diyaar in aanu haddii aanu sportska kooxda dowladda hoosena anoo afkoogii ku hadlaya macalinkana bartan kaga dhawaaqay inaanu taayadiina la diyaar nahay oo mushaarkayga ugu horeeya wixii aanu inamada ka jari doono aanu iyo isagana ku shubi doono saakala khayr baan leeyahay waa dad iyo dibadba asxaab badan golaha deegaanka iyo golaha wakiilana in badan baan wada hadalnay oo ila soo hadashay oo tiri mustaciid baanay guddi ahaana waan kugu imanaynaa aan kunina shakhsi ahaan iyo qof inugu iman mayno annagoo aan wadada bay ni keeni doonaa marka waan ugu soo soconnaa inaan 10ka hore Ramadaan ka faa'iideysanana waan doonaynaa aad baan u salaamayaa ajiibka quruxda badan la ay bahda sportsku ay soo ajiibeen waxaad moodaa in dhalinyaradii Somaliland iyo sportiga Somaliland waa fiican u bariyo marba marka si dambaysa si qurux badnaanayso tan caawa ka koowa oo aad arkaysaan inta soo labeena oo isku timi oo doonaya hawsha khayr kale bisha Ramadaan iyadoo waliba ku jirno hawsha khayr kale ciyaartoy kamid ah ciyaartoydii caasimadda ma ciyaartoydii kooxaha heerka koowaad qadar alla ku yimi shil galay shilkii qofkii uu ku galay dhintay waxaan leenahay horta Allah ha u naxariisto qoyskii qaraabadii qofkaasi ka dhintay waan u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay jannada ha ka waraabiyo fadhi wuxuu xidhay 3 bilood sida la sheegay fadhi waxa weeyaan waa agoon waa rajay reerkoodii ma yaalo dhulkan dhow oo dhan gobolada Soomaaliland dhan uu ka fog yahay aad iyo aad bay u qurux badan tahay in gudiyo dabadba arrinkan oo kale laga kaco aad iyo aad bay u qurux badan tahay in qof kasto sportiba fadhiga ka kaco hawshaana uu isare istaago kii qalbi iyo maskax ku caawinaya iyo kii tabarucaad bisha Ramadaan iyadoo bil khayr waliba ku jirno ka geysanayaba gudiyo dabadba waxaan leenahay hawshaasi ha loo kaco hawshaasi ha laga qayb qaato anagu ka xiriir ahaan kulli kama marnaanayno oo qurux iyo sharaf bay noo tahay markii koowaad ee Somaliland hawshan kale ka dhacdo inaanu qayb ka weyn ka qaadano waan ka qaadanaa anoo ku hadlay afka xiriirka waxaan kaloo isna u ducaynayaa Charles uga faa'iideysanaya inaan u ducayno isna Cabdiraxmaan Jaamac Rooble oo isna ciyaartoy qaali ahaa oo isna tuuriga dhakhtar yaala isaga inuu ducaynaynaa ka xiriir ahaan waxaan leenahay insha Allah isagana Ilaahay u fududeeyo dhakhtarka uu yaalo ee qalliinka waan u ducaynaynaa